qoladana tiktokeriska ah waxay beeniyeen aayadaha quraanka sidoo kale waxay beeniyeen dhaqanka diinta islaamka waxayna beeniyeen ereyga ah Soomaaliya boqolkiiba boqol waa muslim qoladan dhaqan carbeedka iyo kutub carbeedka noo soo rartay hadalladoodu waxba macnaa ma sameynayaan sida aad arkayso xijaabku waajib maaha carabta la timid dad badan la arki doontaa ونساء المؤمنين ولم كمؤمنين أنا وهذا الحوشي أنا حتى دائرة الإيمان أمر إن عن تستقبلوا diinta islaamka kamid ma aha xijaabka carabta dhaqankeeda weeye imisa naqli doontaan qofka saarihi waa gal weeye ugu hayl aayado quraan buu inkiray oo diiday hal aayado qofkii diidana gal weeye quraan shahaadiinta iyo calmaaniyiinta dhamaanba waxay ku wada farxeen in baarlamaanka waqtigiisa dhamaanaya ay ansixiyeen qodob oo dhigaya in dhalinyarada rag iyo dumarba ay markaasi xur u yihiin fikirkooda diinta rabana ay qaadan karaan haddii uu rabo inuu qaadan karo ma ay qaadan karaan LBGT ama dhilanimo ama khaniisnimo wasaaradda diinta oo qaaftane kulay waa magacaabis oo kaliya waxaan dhigi karaa waxay shaqeeyaan xilliga xajka ayagoo hadba lacagta ay ku dalacaan ummadda Soomaaliyeed ee aan awoodin lacagtaas xad dhaafka ah kaliya waxaa la arkaa xilliga cimrada iyo xajka anigana marka ma dhigi karno wasaaradda diinta oo qaabta ayaa ka jirta gudaha dalka Soomaaliya muuqaalada aad u jeedaan midna uu ku fasaxi doonaa codkiisa midna sidoo kale waad arki doontaa dhaqan xumada ka jirta wadooyinka halbuulaha u ah caasimadda dalka waxa kuwaas sameynayna waa dhalinyarada Soomaaliyeed oo u badan tiktokley mashruucooda waa mashruuc aad u weyn oo u baahan falaqeen aad u dheer iyo dabagal kulay falaqeyntaas insha Allah markaan aniga shaqadeeda ii dhamaato oo aan ku laabto meesheedii khaaska ah ayaan ka soo falaqeyn doonaa hadda waxaan ku suganahay meel iska baadiya ayaan ku suganahay insha Allah billahi ta'ala ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ka waaniyo horta inta ka waanin bal midgaanka ah ila dhigeyso waxa uu ku hadlay علمانية waa guuleysatay maanta abtiga cali xildhibaanada golaha shacabka dawladda federaalka Soomaaliya maanta waxay ansixiyeen ilmuhu inay xaq u leeyihiin aragtidooda iyo afkaartooda iyo aaminaadooda diimeed yaani diinta rabaan bay aamini karaan afkaartay rabaan iyo aragtiday rabaan bay qabi karaan xor bay u yihiin waxaas oo dhan sidoo kale waxa la ansixiyay 18 sano in lagu qaangaarayo saqiir damo la wasi karaa ma jiro aawo saqiir wasi waad aragteen calmaaniyiinta wayna ku faraxsan yihiin gabdhahan aad u jeedaan iyo wiilasha tiktokerska ah dhamaayna waxay u badan yihiin dad faafiya dhaqanka reer galbeedka waxayna markaasi beeniyeen aayadaha quraanka kariimka waxayna shaki geliyeen isla aayadaha quraanka kariimka waxay sidoo kale ay sumcad dileen dhaqanka diinta suuban ee Soomaalida ay haysato qaasatan haddii aanu nahnay Soomaaliya waxaan aaminsanahay inaanu nahnay dalka kaliya boqolkiiba boqol islaam ah balse cayaankan aan la aqoonin meesha ay ka imaadeen waalid aan lahaynin walaal wax ishta aan lahaynin oo dhamaantood caas waalidiin ah oo hadba guri kaligooda iska jiifta ayaa markaasi sababay in ay nakala soocaan waxayna baadiyeen ummad badan ayay baadiyeen qoladan tiktokerska rag iyo dumarkii waxa arkaynaa timahooda u qaaban yahay jirkoodii ayagoo ka hadlaya wax xitaa gabadha ayna markaasi sharafta leh aysan ku hadli karin inay ku hadlaan sida lesbiannimada in ay markaasi isku caayaan hebel aniga ku geeyay inuu ku galmoodo hebel ayaa la seexatay naag hebel la raaxaystaa sanad ay kan tahay muuqaalada meel kasta way yaalaan Soomaaliyeey aan iska ilaalino qoladani tiktokerska aad iyo aad ay u dhagar badan yihiin waxayna wadaan suntaasi oo baabi'in karta dhamaan ummadda Soomaaliyeed iyo jiritaanka diinta islaamka aad u maasantiin muuqaal gun ayaan soo sameyn doonaa tiktokerskani insha Allah hadduu ilaahay karaan xog badan waa idinka keenin doonaa hadduu ilaahay karaan noqdo aad u maasantiin barnaamijkan si share gareey